garoonka lagu ciyaaro ciyaaraha fudud ee Slottsskogsfallen magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden ayuu ku yaalaa. Waxay xarun u tahay oo tababaro ku qaata orodyahanka u orda waddanka Sweden ee Suldaan Xasan. Barnaamijka iyo kaamirada hayaan ee toddobaadkan ayaan haddaba kaga warrami doonaa warbixino kooban oo ku saabsan Suldaan Xasan iyo yoolkiisa fog ee la xiriira sida uu u doonayo inuu u noqdo orodyahan caalami ah oo bulshada magac iyo maamuus ku leh. Suldaan Xasan waa 21 jir u dhashay waddanka Soomaaliya. Waxa uu Sweden u yimid 10 sano ka hor. Sanadkii 2012kiina waxa uu ku biiray ciyaaraha orodada. Balse muddo gaaban kadib waxa uu gaaray guulo waaweyn. Taasina waxa la oran karaa waxay wadada u xeertay in uu ka miro dhaliyo hankiisii ahaa in uu noqdo orodyahan caalami ah marka laga hadlayo xagga ciyaaraha caalamiga ah ee orodada. Durba waxaa lagu dhex arkay Suldaan isagoo ku ordaya mid ka mid ah garoomada caalamiga ah. And frown, bend your knees and bow your head and pull that rope until you're dead. Degmada Alingsås waxay ku taalaa duleedka magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad ee waddankan Sweden. Waxay degmadu ay buuxisay 400 oo sano. xafladii ay ku dabaaldegaysay sanad guuradaasi degmadu waxaa lagu marti qaaday orodyahan Suldaan Xasan halka oo lagu guddoonsiiyay abaalmarin iyo shahaado sharaf. abaalmarintani dhiirigelinta ah waxaanu garanay markaan aragnay sida Suldaan Xasan uu u muujiyay orodyahanimadiisa ee firfircoon. waxa uu haystaa rikoorka Yurub iyo tan gobolada galbeed ee 3,000 mitir. marka la eego da'diisa Suldaan waxa uu ka yimid Soomaaliya isaga oo da'yar. wuxuu tusaale wanaagsan u yahay dhalinyarada ajnabta. marka laga hadlayo dadnimada iyo xagga ciyaaraha orodada qalbigeena waxay u ruxmayaan Suldaan sida uu isaga qudhiisu qalbigiisa ugu ruxmayo degmada Alingsås. hambalyo Suldaan. Och vi säger ett varmt grattis till Suldaan. Först vill jag bara säga att det känns verkligen aad baan ugu faraxsanahay inaan helo abaalmarinta sanadkan. qalbigayga ayaan idinkaga mahadcelinayaa. degmada Alingsås waxay ahayd gurigaygii 10 sano ugu dambeeyay. orodkana waxaan doonayaa inaan meel sare ka gaaro gaar ahaan ciyaaraha Olombikada ee lagu qaban doono Tokyo ee Japan. guusha ugu weyn aan gaadhay waxa weeye sanadkan weeye oo markii waxaan noqday Swedish champion oo Sweden orodyaanka ugu fiican baan noqday. waxaanan sameeyay waqti ugu fiicnaa Sweden 5,000 mitir 13 sano muddo 13 sano sanad waqti ugu fiicnaa Sweden ayaan sameeyay sanadkan aan ku orday Los Angeles California Mareykanka. marka de guulaha badankooda aan gaadhay noloshada hadda waxa weeye sanadkan ka timi oo orodkay tahay. marka alxamdulillah weeye de haddana waxaan sanad cusub soo galay 2020ka waxa jira Olombikada ka jirta Tokyo ka dhacda Japan. marka de shaqada laga baahan yahay marka hadda shaqadaas la galayaa.